بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما أحد أو إسنين أي سوق العيسو لحية لباتنك بشا جولاي سنتك لبكن لباتنية لح أو كوباغن لبية طبنك بشا سفر سنتك كن أفر بغلا فرتنية سديد تاريخ ذي هجرية كسو دو هذا مركله إيا برامجكي قبانها qodobadaan idinkuga haynana waxaa Ukraine oo duqeyn u geysatay markab ay leedahay digniinta Iran ayaa noqonaysa tii labaad oo muddo 48 saac gudahooda ay u jeediso dalkii labaad ee Europe ka tirsan warbaahinta Mareykanka oo shaacisay tala uu bixiyay taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka oo la xiriirta walaada ka aloosan gobolka bariga dhexe maxay tahay taladani warbixin ayaan idinkaga haynaa Iran oo si cad u sheegaysa inaysan aqbali doonin in Mareykanku uu maamulo marinka Hormuz golaha wasiirada Israa'iil oo ansixiyay in marinka Gaza ay galaan ciidamada caalamiga ee xasilinta mid ka mid ah wasiirada mayalka adag oo ka hor yimid codaynta arrintaasi ku aadanayn Suudaan ugu yaran 16 qof ayaa lagu dilay 10 kalena waa lagu dhaawacay duqeyn maanta RSF ay ka geysatay waqooyiga gobolka Darfur sheekada ugu dambeysay barnaamijkan idinkuga hayaana waxay ku aadan tahay nin 93 sano jira oo gawaarida waaweyn darawalka ah ayaa waxa uu doonayaa in loo aqoonsado inuu yahay darawalka ama shufeerka ugu da'da weyn ee baabuur shukaanta haya وشيكا حيسة لمان أرمهن يوريبا يقول حرناين حدا كو بير وعندكم حسنتهين داوشة برنامجك عاوة وحينكم بلابينا دقالك السودان يضو ودكاسي أي كألوسيهين دقال عرس أيادين عكله وحاسي كورنية لباتنا كتاغن قبلدا دارفور يقبلا كله أو دقال أي كالسودان يضو جوكتنا دادك شعبكا أي يقول لأنا يان duqeymaha loo adeegsanayo diyaaradaha droniska wararkii ugu dambeeyay in ka badan 16 qof ayaa lagu dilay 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliyan lahayn oo ay fuliyeen ciidamada gurmadka degdega ah ee RSF kaas oo maanta ka dhacay deegaanka Andrew ee degmada xuduudda ku taal ee Tina ee waqooyiga Darfur halkaasi oo ku dhow عدكا سودانية جاب سيده أي إلى وريدية ديغان كاه وشيغين ورباهنتا وعرركا أيا لغو باكسداي ضد الرياضة أو كسوغنا أغاقار كعيل بيون تاسو صوبتي لمشده إيا داوعة ضد بدنا إيادو قار كمده داوعيده لو قاضي عسبتال كويال حدكا سيل لوغو داويعيو إلى وريدية waxay sidoo kale sheegeen in weerarku uu dilay tiro xoolo ah oo dadka deegaanku ay u isticmaali jireen inay ceelasha uga soo dhaamiyaan degmada Tina iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa muddooyinkii dambe la kulmayay weerar isdaba joog ah oo loo adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee RSF kuwaasi oo lagu bartilmaameedsado deegaano ay ka mid yihiin goobaha ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ee ka soo cararay magaalooyinka waqooyiga Darfur oo horey ay u qabsadeen ciidamada RSF aagaasi waxaa ku sugan tiro kooban oo ka tirsan ciidamada wada jirka ah ee taageersan ciidamada Suudaan iyadoo dagaalada iyo xiisadaha amni wali cirka ay ku leeran yihiin gobolka Darfur dhanka kale Al-Hajj Hussein oo loo yaqaano Al-Boss kana tirsana kooxda 142 ee RSF ee waxda Rahid al-Nuba ee waqooyiga Kordofan ayaa lagu dilay dagaalo uu la galay ciidamada Suudaan rarka ayaa tilmaamaya inuu ka mid ahaa taliyaasha ugu awoodda badan ee RSF ee gobolka isla markaasna uu amaani jiray kalsooni badanna uu ku qabay hogaamiyaha RSF Maxamed Hamdan Dagalo Hameti geeridiisa ayaa ku soo beegmaysa xilli ciidamada Suudaan ay horumar ka sameynayaan wadada muhiimka ah ee u dhaxaysa Umudurmaan iyo Al-Ubayd kadib markii dib ay ula wareegeen magaalada Bara iyo saldhigyo kale oo u dhow sida ay cadeeyeen ciidamada
dowladda. warbaahinta maxalliga ayaa sidoo kale sheegaysa in ciidamada Suudaan ay sii wadaan howlgallada lagu sugayo amniga deegaanadii dhawaan dib ay ula wareegeen ee gobolka waqooyiga Kordofan. dhankiisa ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Dr. Kamal Idris ayaa maantay ku tilmaamay dib ula wareegista ciidamada dowladda ee magaalooyinka Bara, Umsiyala iyo Jabra al-Sheikh inay tahay guul taariikhi ah oo istiraatiiji ah oo lagu soo celinayo madax banaanida dowladda. wuxuu sheegay in guushaasi ay tahay tilaabo muhiim u ah dib u soo celinta amniga iyo xasiloonida dalka, isla markaasna ay u gogol xaarayso in dhammaanba la xoreeyo gobolka galbeed ee Kordofan iyo guud ahaan Darfur. dagaalka u dhaxeeya ciidamada Suudaan iyo kuwa RSF ayaa qarxay bishii Abriil 2023 waxaana tan iyo xilligaasi ku dhintay 10,000 oo qof halka malaayiin kale ay ku barakaceen, iyadoo qaramada midoobay ay ku tilmaamtay colaadan tan ugu weyn ee bini'aadantinimo ee xilligan ka jirta dunida. waa hagaag wararkaasna intaas aynu kaga gudubna. markan aynu eegno dhanka Tel Aviv, halkaasi oo wararka ka imaanaya ay sheegayaan in Israa'iil ay ansixisay ciidamo ka socda wadamada caalamka ee ballan qaaday inay ciidamo u soo dirayaan Mareykanka Gaza inay halkaasi galaan. warbaahinta Israa'iil iyo wixii arrintan ay ka qortay haddii aynu qooraansanno. golaha wasiirada Israa'iil ayaa galabtay ansixiyey in ciidanka caalamiga ee xasilinta la geeyo Mareykanka Gaza, iyadoo tilaabadani qayb ka tahay qorshaha uu soo jeediyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. ciidanka caalamiga ee xasilinta ayaa ka mid ah 4 hay-adood oo loo qorsheeyey in ay maamulaan Gaza sida ku cad qorshaha Trump ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka Gaza, kaas oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku ansixiyey qaraarka tirsigiisa uu yahay 2803 ee soo baxay 17 November 2025. wargeyska Israa'iil Hayom ee Israa'iil ka soo baxa ayaa sheegaya in golaha wasiiradu ay ansixiyeen in ciidamo caalami ah oo hoostaga waxa loogu yeero golaha nabadda la geeyo Mareykanka Gaza. wargeysku waxa uu sheegay in wasiirka amniga qaranka ee mayalka adag ee Israa'iil Itamar Ben-Gvir uu ka codeeyey ama uu diiday go'aankan, isagoo ka hor yimid inta badan xubnaha golaha wasiirada. sida uu qoray wargeyska iyo dhaco taxrinood ee ka soo baxa Israa'iil, Ben-Gvir ayaa sheegay in Xamaas aysan fulin ballanqaadkeedii hubka dhigista iyo ka saarista hubka Gaza, sidaas darteed aysan ahayn waajib in la aqbalo qorshahan. Ben-Gvir ayaa sidoo kale sheegay in xalka Gaza uu yahay waa si hadalka u dhigay in la dhiirigeliyo dadku inay ka haajiraan halkaasi. dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saar ayaa ugu jawaabay Ben-Gvir isagoo yiri tani waa qorshe caalami ah, waxaana laga yaabaa inaanan ku guulaysan, balse waa inaynan noqon kuwa fashilaya. hay-adda warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in ansixinta golaha wasiiradu ay si dhaba u tahay ogolaanshaha lagu bilaabayo dhismaha xarunta ciidanka caalamiga ee xasilinta oo laga samayn doono meel u dhow magaalada Rafax ee koonfurta Mareykanka Gaza. dhanka kale Xamaas ayaa sheegtay in ku adkaysiga arrinka hubka dhigista iyo u gudbidda qodobka labaad ee heshiiska xabad joojinta ay ka hor imaanayaan haddii aan la hirgelin wejiga koowaad qodobada ka dhiman qorshaha Donald Trump ee Gaza. Xamaas waxay sheegtay inay fulisay waajibaadkeedii wejiga koowaad ee ay ka mid ahaayeen sii deynta maxaabiista, waxayna ku eedeysay Tel Aviv in ay ka baxday ballanqaadyadeedii iyadoo sii wada duqiimaha iyo xadidaadda dhanka gargaarka bini'aadantinimo. sida ku cad qorshaha Trump, Mareykanka ayaa la shaqayn doona wadamada Carabta iyo beesha caalamka si loo dhiso ciidanka kumeel gaarka ee caalamiga, kaas oo tababari doona isla markaasna taageeri doona booliiska Falastiiniyiinta ee Gaza, iyagoo la kaashanaya dalalka Jordan iyo Masar. qorshuhu wuxuu sidoo kale sheegayaa in ciidankan uu Israa'iil iyo Masar kala shaqayn doono sugidda xuduudaha, ka hortagga
soo gelitaanka hubka ee Gaza iyo fududeynta socodka badeecadaha. waa hagaag malafkan Gaza wuxuu ka mid yahay malafyada ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo kala hadli doona toddobaadkan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump marka uu booqdo magaalada Washington halkaasi oo uu tegi doono maalmaha fooda inagu soo haya. wararka qaarkood waxay leeyihiin berri inuu safaro ayaa loo badinaya. arrimaha Iiraanna sidoo kale miiska ayay saaran yihiin oo labada nin waxay halkaasi ku jeexjeexi doonaan waxyaabaha ay aaminsan yihiin in xalka uu ku jiro dagaalka Iiraan iyadoo dagaalkuna uu sii adkaanayo. waxaan u gudbi doonaa warar la xiriira colaadaasi Iiraan oo u hanjabtay Ukraine isla markaasna sheegaysa in ay jawaab adag ka bixin doonto weerar Ukraine ay ku qaaday markab Iiraan ay leedahay. waxaan kaloo idin haynaa war kale oo Iiraan ka soo baxay iyo taliyaha taliska dhexe ciidanka Mareykanka oo isna bixiyay talo la xiriirta dagaaladan ka aloosan gobolka Bariga Dhexe. wararkaasi warar kale oo hadda soo dhacayna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Abbas Araghchi ayaa ku nuuxnuuxsaday in weerar Ukraine ay ku qaaday markab ganacsi oo Iiraan ay leedahay uusan noqon doonin mid jawaab la'aan ah. Araghchi ayaa cambaariyay weerarka oo ay sheegatay Ukraine laguna qaaday markabka Iiraan ay leedahay oo ku sugnaa badda Caspian-ka. waxaana Iiraan ay sheegtay in qaraxa ka dhashay weerarkaasi uu sababay dhimashada hal badmaax iyo dhaawaca mid kale. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in ciidamada dalkiisu ay fuliyeen weeraro masaafo dheer oo ka dhacay badda Caspian oo ay ku jiraan maraakiib loo adeegsanayay daabulista saanada military ee la xiriirta Iiraan. intii uu socday dagaalka Ukraine, Kiev ayaa wajahaysay diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee ay nashqadaysay Iiraan kuwaasi oo Ruushka u adeegsaday dagaalada Ukraine. sidoo kale wadamada Bariga Dhexe ayaa Iiraan ay ku weerartay diyaaradahaasi iyadoo soo bandhigtay khibradeeda ku aadan diyaaradaha aan duuriyaha lahayn. Araghchi ayaa bartiisa baraha bulshada waxa uu ku sheegay in weerarkaasi uu ahaa xadgudub cad oo kana axdiga qaramada midoobay laguna fuliyay amarka Israa'iil si Yurub loogu jiido dagaalka ka dhanka ah dalkiisa. wasiirka arrimaha dibadda Iiraan waxa uu farta ku fiiqay in uu si cad ugu sheegay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Kaja Kallas iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov intii telefoonka ay ku wada hadlayeen in wixii uu sameeyay maamulka ku sugan Kiev aysan noqon doonin jawaab la'aan. Tehran ayaa ku tilmaamtay weerarka markabkeeda lagula kacay fal gardarro ah iyadoo sheegtay inay difaaci doonto danaheeda qaran iyo amnigeeda. isla markaasna waxay ku eedeysay Kiev inay doonayso inay ballaariso dagaalka Ukraine. wakaaladda wararka IRNA ee Iiraan laga leeyahay ayaa sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ay u yeertay ku-xigeenka safiirka Ukraine u fadhiya magaalada Tehran si loogu gudbiyo cabashada iyo carada dowladda Iiraan ee ku saabsan waxa lagu tilmaamay weerar cadaawad iyo dambi ah. Ambaaraynta Iiraan ayaa ku soo beegantay xilli madaxweyne Zelensky uu sheegay in Kiev ay ogaatay in Ruushku uu Iiraan la wadaagay xogta dayax-gacmeedyada ee Bariga Dhexe si uu u hago weerarada gobolka Iiraan ay ka wado. isla wararka Iiraan, ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan Qasim Qaribabadi ayaa isna waxa uu sheegay in Iiraan aysan ogolaan doonin in Mareykanku ay maamulaan marin biyoodka gobolka. wuxuu sheegay in Iiraan ay qadarinayso doorka dalalka saaxiibka iyo kuwa dariska ah ee dadaalka ugu jira dhimista xiisadda. sidoo kale wuxuu carabka ku adkeeyay in Iiraan aysan marnabo ogolaan doonin in Washington ay ku yeelato awood buuxda marin biyoodka ku yaala biyaha dhuleed iyo sidoo kale marin biyoodka Hormuz. mas-uulka ayaa sheegay in Iiraan weli ay ka go'an tahay diblomaasiyad dhab ah iyo xaqiijinta xorriyadda isu socodka maraakiibta si nabdoon inay kaga gudbaan marinka Hormuz. war kale ee Iiraan la xiriira haddii aynu ku sii soconno, mas-uul ka tirsan dowladda waddanka Iiraan ayaa u sheegay telefishinka CBS ee Mareykanka laga leeyahay in wadahadaladii labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay la yeesheen mas-uuliyiinta Cumaan ay ahaayeen kuwa wax ku ool ah. mas-uulkan oo magaciisa aan la xusin ayaa waxa uu tibaaxay in wadahadalada
dib loogu furayo marin biyoodka Hormuus ay ku socdaan jiha wanaagsan. Waxaa intaasi uu ku daray in dadaalada dib loogu furayo marin biyoodka Hormuus ay si toos ah ugu xiran yihiin hakinta weerarada Maraykanka ee ka dhanka ah Iiraan. Waa tahay markan waxaynu eegaynaa dhanka Maraykanka war culus oo ka soo yeeray gaar ahaan taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka. Shabakada wararka Axios ee Maraykanka laga leeyahay ayaa waxay soo xigatay laba ilo wareed oo xogogaal ah kuwaasi oo sheegaya in taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka ee loo yaqaan CENTCOM General Brett Cooper uu ku taliyay in la joojiyo ololihii duqeymaha ee ka socday marin biyoodka Hormuus, isagoo ku nuuxnuuxsaday in uu gaaray heerkii ugu sarreeyay waxtarkiisa. Waa si hadalka u dhigay. Sida ay sheegeen ilo wareejada, Cooper ayaa waxa uu tilmaamay in tillaabada xigta ee suurtagalka ay noqon karto dib u bilaabista dagaal ballaaran si loo beegsado ku dhowaad 20% bartilmaameedyadii ay ciidamada aqoonsadeen balse weli aan la duqayn. Cooper ayaa sidoo kale sheegay in haddii aan la qaadan go'aan lagu soo celinayo howlgal military oo ballaaran aysan jirin faa'iido ku jirta sii wadista ololaha duqeymaha ee socday 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. Axios ayaa intaa ku dartay in madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu markii hore u janjeeray in uu dib u bilaabo howlgal military oo ballaaran balse fikirkiisa uu bedelay fiidnimadii Khamiista iyadoo go'aankiisa ugu dambeeyana uu qaatay Jimcihii. Warbixinta waxay sheegtay in talada uu bixiyay taliyaha taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka iyo sidoo kale taliyaal kale ay saameyn ku yeelatay go'aankii Trump uu ku hakiyay weerarada ka dhanka ah Iiraan. Haddaba inkastoo arrintan sidaan ay tahay, laakiin haddana waxaa la sheegayaa in Maraykanka dhibaatada ugu weyn ee haysataa inay tahay nidaamyada difaaca oo ka ilaanaya ama ka dhamaaday. Marka waxaa yidhi ama dagaalka toos aan u galno, laakiin weeraradan goosgooska ah Iiraan halkii mar waxay soo ridaysaa 10-20 gantaal, waxaana sidaas ku dhammaanaya nidaamyada difaaca hawada. waxaa laga yaabaa gantaalada Iiraan inay ku fadhiyaan 300,000 in ka yar, 150,000, 20,000 oo dollar oo diyaarad doronaysa lagagana hortegayo gantaal qiimihiisa uu ku fadhiyo 3 milyan ilaa iyo 1 milyan inta u dhaxaysa. 1 milyan ilaa iyo 3 milyan. Marka waxaa la dagaalka amina toos u galno ama arrinkan cagaha aan u dhigno iyadoo lagu marsiyoonayo diblomaasiyadda. Marka Maraykanku midib isku soo abaabuli doonaa ma warshadihiisii ayuu cabaysanayaa, hubkii baa la samaynayaa. Netanyahu waxa ay Trump ka wada hadli doona ayaa la sugi doonaa. Dabcan arrintan ma ahan arrin ka soo go'day Carabta, arrin Iiraan ka soo go'dana maaha. Maraykanku dagaalka inuu joojiyo, Maraykanka dagaal hadduu joojinayo horey buu u joojin lahaa. 40 maalmood bishii February 28 dagaalka la qaaday, Trump farqahay ku dhaganaayeen wadamada Carabta. warjoog baa lagu lahaa. Anaga dhibaato noo keenaysa arrintan, maalgelinteennii waddankiina aad ku samaynay, tii adinku halkan aad ku samayseen shidaalka, dhibaata dhici doonta. Trump waa isbaqiiqay. markii dambana wuxuu ka soo dhex hadlayba sida qobrada ay sheegayso ra'iisul wasaaraha Pakistan oo soo gudbiyay hindisan nabadeed. Trumpna wuxuu yiri waa ku qaracay, isla markiiba aqbalay. marka waxay leedahay qobrada arrimaha militariga oo ku xitaa Maraykanka oo ku jiro Trump oo og inuu cad cantuwi karo ma joogeen, laakiin waxbaa la tusi baa la yiri. marka waa hagaag warkaas inta aynu kaga gudubno, hogaamiyaha sare ee Iiraan ayaa hadda soo hadlay. waxaa la sheegayaa wararka hadda soo dhacaya, warqad ayay wuxuu u diray ururka Xisbullah ee reer Lebanon, wuxuuna ku leeyahay waxaa naga go'an ciidanka Israa'iil inaan ka saarno koonfurta Lebanon, isla markaasna arrintaas aynu ka shaqaynayno haddii ay noqon lahayd inaan u adeegsano diblomaasiyad iyo habab kale. dabcan warkan oo faahfaahsan barnaamijyadeena soo socda ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa haddii aan la idmo. haatan waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay. alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen.
waxaan idin haynaa sheeko cajiiba 93 sano nin jira aan ku celiyay mar kale 93 sano ayaa gawaarida waaweyn ee gobolada isaga kala gooshta ee xamuulka qaada ayuu darawalkiya wuxuu geli doonaa mar dhow 94 sano inuu noqdo wuxuu leeyahay waxaan rabaa buugga lagu kaydiyo waxyaabaha cajiibka ah in la igu daro waayo wuxuu leeyahay ma jiro qof da'deeda oo shofeer ah oo shukaanta u haya gawaarida waaweyn aynu ogna sheekadan xiisaha leh oo dalkaasi Mareykanka aad looga hadalhayo ninkan 93 jirka waxa uu ku nool yahay gobolka Iowa ee dalka Mareykanka waxa laga yaabaa in uu noqdo marka loo diiwaan geliyo qofka ugu da'da weyn ee gaadiidka xamuulka ee waaweyn darawalka ah Orin Asmus bisha Agost ayaa wax u buuxsamaysa 94 sano waxaana uu sheegay in uu gawaarida xamuulka darawalka ahaa 19 sano markuu jiray wuxuuna sheegay 11 sano la soo dhaafay inuu hal shirkad u shaqaynayay gudoomiyaha shirkadaasi ayaa waxa uu leeyahay waxaynu ka dalbanay buugga lagu kaydiyo waxyaabaha cajiibka ah in Asmus loo aqoonsado in uu yahay qofka ugu da'da weyn ee gawaarida wada horey waxa u jiray nin la yiraahdo Doyle Archer oo 92 sano jir ahaa oo leeyahay ninkaasi ayaa waxa uu ahaa ninka ugu da'da weyn ee gawaarida xamuulka wada muddo ka badan 70 sano ayuu shaqaynaya ninkani wuxuuna waday gaadiidka xamuulka wuxuu sheegay in uu jaray masaafo 5 milyan oo mayl ah marka la isku dardaro isagoo maray dhammaan gobolada waddanka Mareykanka marka laga reebo Hawaii iyo Alaska labadaas bay dhaman buu leeyahay laakiin inta kale gaari baan ku tagay buu ku leeyahay gaarigaas oo wata ninkaasi 93 sano ayuu gaari ku wadaa waliba gaari xamuul ah oo shukaantaas ku dhagan yahay dad badan waxa laga yaabaa dhalinyaro ah in laga kar la'yahay war shaqaysta balkan eeg si isla xoodiyay ee gaariga markuu wado koofidiisu madaxa gashtay highwaygu fuulay ama wadooyinka waaweyn buu saaraya waa isoo xarinaya wuxuu leeyahay da'du waa lambar la isku dardaray oo kaliya yaa la yiraahdaa horta da' maxaa la yiraahdaa buu leeyahay da' horta da' maxay tahay 93 sano bal ka waran 23 jirka 33 jirka 43 jirka subaxii aan laga karin war shaqayso war shaqada aad 93 sano xafiis ma fadhiyo dukaan ma aha baqaar ma aha gawaarida waaweyn buu wadaa ninkaas sheekada marka waxaan u soo qaadanay waa dhiirigelin shaqaa sharaf leh waxay doontaa noqoto shaqaa sharaf leh waa hagad inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir وعينو برنامج كحيقة إن شاء الله إنت كهر رئيسة سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته